xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay xaaladii ugu dambeeyay ee sasaanka colaadada ka taagan deegaanka Tukarraq ee koonfurta gobolka Sool halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay isku fadhiyeen ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland Salmaan Yuusuf Cali Koore oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu cadeeyay ciidamada qaranka ee Somaliland ay ku sugnaan doonaan deegaanka Tukarraq isla markaasina ay dib uga soo laaban doonin Salmaan Yuusuf Cali Koore waxa uu ku hanjabay in haddii dhaqdhaqaaqa colaadaasi ay istaagi weydo ay noqonayso in garowga ama laasxanood mid ahaan laga qaxo Salmaan Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland waxa uu fariin adag u diray dadka ku dhaqan magaalada Garowe isagoona sheegay in dadkaasi aanay u baahnayn in colaad iyo qax ay ka faa'iidaan dagaaladaasi wasiir Koore oo arintaasi ka hadlaya waxa uu yiri anta halkan waxaan isugu keeniyay inaan kelmada ka iraahdo arrimaha ka socda bariga ama deegaamada Tukarraq iyo wixii la xiriira waxaad ogtihiin in doorashada madaxweynaha Somaliland doorashadii dhacday waan hadda 2 bilood ka soo wareegin in laga doortay ilaa xalin ilaa Taleex ilaa Tukarraq ilaa Laascaanood ilaa Baran in madaxweynaha codka uu maanta ku fadhiyo uu yahay cod dadkaasi ay ku doorteen iyagoo maankoodii iyo maskaxdoodaba qaba waana wax caalami ah oo la og yahay oo sanaadiiqda aan xalin iyo kacaya ka keenay ee lagu doortay Muuse Biixi waxay ka yimaadeen meel qardhow jirta 40 kilomitir Garowana u jirta 30 kilomitir ayaa dadku ka codeeyeen iyagoo maankooda qaba iyo maskaxdooda waxa taasi tusaysaa in dadka deegaankaasi ay doorteen inay Somaliland ka mid noqdaan waxaan ogahay dadka ku nool Boocame iyo dadka ku nool Taleex iyo dadka Falayriyaha ku nool iyo kuwa Tukarraq ku nool iyo kuwa Godqaboobe ku nool intuba inay doonayaan inay dalkooda iyo ummadooda la jaan qaadaan anigu waxaan ku dhashay deegaanka waxa muuqata maamulka Soomaaliya in ay dib ka wadaan deegaamada iyo xuduudaha iyo dhulka Somaliland ee madaxweynaha si kalsooniya codka loogu doortay oo aan anigu joogay goob kasta iyo meel kasta arrimaha waxaan isleeyahay waxa la rabaa dhibta loo sameeyaa in khilaaf siyaasi ah oo gudahooda aan lagu xalilo ama ha noqoto mid xamar ka socota ama ha noqoto mid Garowe ka socota oo dadka la rabo in lagu jahwareeriyo iyo kororsi iyo soo noqosho madaxeed oo la rabo in dadku lagu jahwareeriyo ay ku helaan aad baan uga xunahay ciidanka Somaliland xarin buu joogaa kacayuu joogaa Taleex buu joogaa in la yiraahdo Laascaanood xalin iyo Laascaanood waxay u jirtaa 240 kilomitir ciidanka Somaliland jooga 240 kilomitir ee u jirtaa Laascaanood halka hadda uu kan Laascaanood ka joogo 55 ama 60 kilomitir marka waxaad arkaysaa in arintu baroortu orgiga ka weyn ay tahay ciidamada iyo waxa ka socda iyo reer hebelka ka socda iyo kuwa marba meel gobol reer hebelka laga sheekaynayo reer hebel wax la yiraahdaa ma jirto reer hebel annaga ah kuwa reer hebel Taleex uga codeynay campaign-ka oo xalin uga codeynay kacayo uga codeynay madaxweynaha la doortay reer hebel idin lama wadaagaan waxaan leeyahay qarankani uu isku filan yahay inuu istifaaco oo xuduudihiisa gaaro cidna duulaan kuma cid uu duulaan ku yahay ma jirto ma rabno inaanu cid Soomaaliya dhibno ama dhibaato loo geysto
ma doonayno inay dadka iyagu ku sii haraan 26 sannadood baa sida ay waxay noqdeen dadka ugu hooseeya marka social service-ka loo eego waxbarta ama biyo hela ama caafimaad hela waxaana waxa ka mas'uulaha dad xuduudka Garowe ku ilaashanaya danaha dadka deegaanka degan ay Garowe ninayda kuma haysto reer Garowe address kareynaya ma ka hadlayo hadda nimanka la yiraahdo Boosaasan ka hadli maayo gaalkacyana ka hadli maayo reer Garowe la hadlaya message-kan ha dhageysteen reer Garowe dalka waynu ku wada noolaan jir ilaa Ingiriis sida aynu xuduudaha u kala lahayn iyo markii gobolada Soomaaliya la ahaaba sidii xuduudaha loo kala lahaa waad garanaysaa meesha xuduudda Garowe martana waa dogtii Garowe waa caasimad weyn oo ka mid ah caasimadaha dadka Soomaalida maanta ku nool yihiin waa caasimad horumartay anigu ma arag intay horumartay laakiin TV-yada markaan ka daawado tii aan garanayo ma waxaan leeyahay bashbash iyo baraare iyo barwaaqa qabtaan horumar baad haysataan waa dadka deegaanka leh controlka diiday oo wixii la ogaa ka dhacay markaad controlka dabceed inaad soo kordhiso soo durkisaan dadku laba bay taagantahay lama wadno labada ay taagantahay waxay la sacaanad iyo Garowe midun baa qaxaya haddii aad sii wadaan dagaalka iyo kacayda iyo reer hebel aanu cid la nahayna ma jirtee dad Somaliland dirisa oo ummadda iyo awoodayba xuduudka sameeyay 110 sannadood ka hor sameeyay xuduudka min baasha dhaxayna ma sameyn Ingiriisna ma sameyn aan still waxaan ku adkahay in xuduudkaygu xuduudka yahay oo Somaliland aan ahay oo aan boundary kala jeexan oo caalami la wada og yahay adduunkooda dadka dhamaan Somaliland dariska ee deegaanka aan ka soo jeedana waxaan leeyahay waqtigii dadkan loo haysan lahaa culaadha waynu dhaaf dadkan waxay u codeeyeen madaxweynaha maanta dalka xukuma kelmadda aan reer Garowe waxa weeye baroortu balaayo buulkeeda ku hadhaabaalay ninka ka yimid oo dhowrka baabo wata dalka iyo ka yimid iyo kan laga soo reer hebel baan ahay Boosaaso ka yimid inta dhibtu taaban mayso dhibtu cid ay taabanayso ay kortabaysaa waa reer Garowe waxaan ku leeyahay dhibta joojiye Garowe xukuumadan iyo ciidanka Somaliland ee aan wasiirka ka ahay uma soo socoto diyaar uma aha inay disturbance iyo dhib ku samayso diyaar uma aha inay dhib u geysato Garowe laakiin meeshii madaxweynaha looga footeeyay ciidankiisa iyo maamulkiisu uu tegaya taacid aan u daba fariisanayno ma jirto reer Garowe two options ka bay haystaan nabad inaanu ku wada noolaano oo ay gartaan in ay dal horumaray iyo magaalo horumartay joogaan oo aanu jecelahay inaanu ku ixtiraamno annagana sida aanu ugu ixtiraamayno deegaankooda inay kaayaga noogu ixtiraamaan in Garowe ka hadlay iyo nin Garowe jooga xigmad uu leeyahay ma jirto dhulka cida gacanta ku haysa oo maamusho waa la ogyahay reer Garowe laba option bay noqonaysaa arrimaha laga hadlaya waan ku noqonaya in laas aanood qaxdo iyo in Garowe qaxdo
waxaan leeyahay labadaasina way dhicin midna dan inooma aha labadaas yay dhicin midna dan uma aha dadka iyo deegaanada aynu ku wada noolahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadka ka qayb qaashay nabadda ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Somaliland waa ciidan u diyaara inuu ilaaliyo xuduudaha uu la leeyahay dalalka Afrika nin gorowa joogaana dalka Somalilandna maanta nin gorowa jooga oo reerka aan ka soo jeedaa ka tirsanina hadalkiisu macno weyn samayn maayo ninkii garoonka fadhiya iyo ninka dalka xukuma ayuunbaa wax la weydiinaya kuwaana waxaan leeyahay war waqtigii arrintaas way dhammaatay waqtigii aad garowa hadalka laga hayn jiray ee dadkiina ka mid noqdo oo haddaad isin tihiinna isinnimadiinnii waa idiin bannaan haddii aad nin aqoonyahana oo wax doonaya tahayna shaqo iyo wixii aad u baahan tahay waanu kuu hayna waxaan aad iyo aad ugu celcelinayaa ciidankaasi nabad ayuu ku tegayaa xuduudiisa cid uu duulaan ku yahay ma jirto mar haddii ay arrintaasi ciidankaasi aanu cid ku duulaanahayn intuu meeshaa fadhiyeyna waad ogeydeen weli ciduu dhib u geystayna lama sheegin annagaa la shaqaynay waxaan leeyahay ciidankaasi dhib ma wado laakiin waa khasab haddii uu u arko tarad in lagu hayo inuu tallaabo qaado wuu ku khasbay waana wax caalamiya oo la og yahay in haddii arrimahaasoo kale dhacaan cid alla cidii kasta ee la kulantaa wax naftiisa iyo hantidiisa iyo maalkiisa iyo alaabtiisa ku adhib wax kastaa waxay cid kastaa jawaab bay ka bixisaa ama retaliation wax la yidhahdo ciidanku hadduu arko in dantiisa naftiisa iyo hantidiisa iyo qalabkiisa lagu yahay duulaan ciidanku tallaabo qaaday runtu waa sidaa wey haddii kale nabadu buu ku joogayaa deegaanka uu maanta joogo waqtigii loo baahdo ee kalena cid baa taladiisa iyo go-aankiisa iyo dhaqaajintiisa iyo dejintiisaba leh aad iyo aad baan kelmadahaan idinku yaro maanta waa intaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin ساعات وزير كبير سمعنا سلام يوسف على الكورة وحبا سوكرنا دقائقه حاجة بدلان قوبتي مدى وعصب باكرة محامك هذا كان كلو كاني وسؤال شكرات طلبات وحوية قوانك سمعنا وحوية أنا ندي بقى صار لعبان تكرق وبرتها دكتو وين يا قوانك wax cusub oo horta anagu ognahay dadka uun reer hebel uun marba meelo lagaga hadlaya oo dadka caadifadan jirin iyo reer hebel baynu nahay lagaga hadlayo Afrika oo dhan waxay u kala go'an tahay reer hebel ka aan anigu maanta ka mid ahay buu hodlay wixii dhanka ka xiga waa Ethiopia oo marka reer kasta oo Somaliland deegaan qayb Ethiopia khasab maaha xuduudda iyo dadku waxa ay sheeganayaan inay isku mid noqdaan haddii la isku khaldana waxay Afrika oo dhan ba isku dhex daadanaysa oo xuduudaha laga hor yimaado oo cidina dawlad ahaan wayso ta aan ka hadlaynaa waxa weeye waxa caadifada in la joojiyo ciidankuna barta uu joogo waa dhulkiisii Somaliland ee uu deganaa ee uu degi doono ee uu joogi doono waajibaadkiisa qaran ka qabsan doono afkaygu wuxuu metelaa marka aan hadlayo Council of Ministers deegaankaasna wasiir constituency-ga ka soo jeedana waxay diidayaa inaan dadka wax u sheego oo la hadlo oo aan tusaaleeyo oo aan tilmaama ma jiro